waxa weeye inta riwaayaddu xamar ka jirto waqooyi uu sii fogaanay waxa weeye maxaa loogu dhagsan yahay Soomaaliland maxaa loogu dhagsan waqtigan dhashay Ilaahay baa og Soomaad garan oo baadiyaan ku dhalanay waliba dhulka jigjiga iyo ilaa gabiil u dhaxayaan ku dhalanay macallin baa soo baray macallin quraana hooyaday Xaliima Cabdilaahi baa leedahay islaan geesiyada oo fariida oo ragana iska celisay Soomaad garan walaalaheed iyo kuwa kalaba aabahayna kuleelkiisa Jarmal baba loo oran jiray Soomaad garan gabiil iskuulkeega isaga dhisay waxaan arkay markii iskuulka gabiilahan bilaabay markan macallin shaqada qaranka ka hayay waraaq ingiriis uu qoray maalintii iskuulka la furay uu yiri iskuulkan lama furi kareen hadduu Ismaaciil Samatar magaaladan joogin oo waxa la yiri waa la nagaalaynaya horta aabahay iyo hooyaday waa kuwaas abtigeena xoog sida la oran jiray xaaji askar reedir dhabiyo reer gabiile bahay Soomaad garan adeerkeena jaamac Samatar baa la oran jiray adeerkeena awoogiina Samatar dheer la jiro uu dheeraa una gadcasa isagoo 9 jir faras fuul jiray iskuulka macallin Xasan oday la yiraahdo quraanka ay dhigay ilaa jis tabaarak ay dhigay Soomaad garan iskuulka hoose gabiile baan ka baxay iskuulka dhexe boardingka gabiile baan ka baxay iskuulka dhexe Soomaalidu lahayd Amuud baan ka baxay waan shaqadii qarankan qabtay waa la xidhay 3 bilood iyo badbaan siyaad barro xidhnaa waxa la yiri basaas baa Ethiopia u tahay maanta Ethiopia ma tagi karo jaamacadda University of California Berkeley baan PhD ka soo qaatay marka wadankiiba ciirayaan imiday oo waqooyi waa markii la burburinayay meel lagu soo noqdo waan waay Mareykanka markaa macallinimo ka doontay waan tartamay anoo madow qoloyinhan saxaabana Soomaaliya ay guri wariya adoo lahjadaadu sidan tahay meel ma gaari sida wax tartanka iska dhaaf waa midabta koor baa jireen waan soo galay 200 baan ka soo qaaday shaqadii muxuu yahay Professor Ahmed Ismaaciil Samatar ninkaan aqoon qofka aan aqoon waa qof Soomaaliya nin Soomaaliya oo kolka daa jooga magaalo Gabriel la yiraahdo ku dhashay oo Hargeysa u jirta 30 kilomitir waxaan ka badnayn xagga galbeedka ka xigta oo beeraley u badan halka iskuul ka galay markaan yaraa malcamada quraanka iyo dugsiga hoose dugsiga dhexe iyo dugsiga sarena Amuud boardingkeygii ka galay sidoo uu sheegtay dabeetana idaacadii Muqdisho ka shaqeeyay 9 bilood in ku dhowdeetana BBC da 3 sanadood iyo waxoogaa ka shaqeeyay deetana Mareykan u gudbay inaan jaamacada ka galo halka 4 degree ka qaatay in 30 sanadoodna wadanka Mareykanka jaamacadahooga wax ka dhigayay 18 sanadoodna Hormuud ka ahaa kuna takhasusay cilmiga xagga siyaasadda iyo dhaqaalaha adduunka sida ay isku xidhan yihiin international political economy ayaa la yiraahdaa takhasuskaygu yahay bugag baran ka qoray Afrika iyo Soomaaliya artikalo badan ka qoray abuuray journalka academiga ee Soomaalida arimaheega khuseeya qura adduunyada ka jira afka Ingiriiska oo bildaan la yiraahdo sanadkii mar soo baxa arrimaha aynkaas ay taariikhdeedu tahay Professor dadka bulsho markay horumar gaarto aqoonta laga dhisaa aqoonyahan baa tahay 30 sano in ka badan jaamacad aad macallinka ahayd mar Hormuud aad ahayd mar waqtigaaga waxaad gelisay noloshaada inta badan waxbarasho iyo tacliin waqtina waad ku jirtaa nin weyn baa tahay ma jira wax maanta la taaban karo oo wadajir baa horta wax lagu qabtaa qof kaliya wax ma qaban karo laakiin ka Professor Samatar ahaan adigoo Ahmed Ismaaciil bulshadii Soomaaliyeed ama Soomaaliland ha ahaato ama Soomaaliya ha ahaato ilaa hal library-yood furtay ha ahaato hal iskuul ha ahaato wax micno leh dadkaaga uga tagay Professor waxa tahay aqoonyahan Soomaaliyeed macallina waa tahay aqoon baa leedahay deegaanada Soomaaliya marar badan aad tagtaa waxbarashada horta door intee la eg bad isleedahay dadka Soomaaliyeed wada uga faa'iideysa ama Soomaaliya ha joogaan xamar ama waqooyi ha joogaan waxa weeye horta dadka waxbartay way fara badan yihiin waxbarashada labaan u qaybiya dadka musaqafiinta af Carabiga lagu dhaho labaan u kala qaybiya mid buugii iyo wixii dad kale ay soo saareen qof kale uu soo saaray caruurta u akhriyo uga faa'iideeyo u jilciya laakiin se isagu ama iyadu aan wax soo saarin iyo mid intuu wax soo saara dabadeedna u jilciya dabadeedna u gudbiyo dadka wax walba walaal ma noqon karaysid 100 qof ma noqon karaysid kartidaydu way yar tahay shakhsiyan haday su'aashu igu beegnayd ya amrigaygu yar yahay shakhsiyadaydu way yar tahay aqoontaydu way yar tahay Soomaad garan anu dhowr mid baan isku dayay intii mas'uuliyadayda ahayd inaan ka soo baxay inakay taala inaad ii sheegtaan iyo kale
markan tagay Garowe lecture-aan ka bixiyaa arday aan isku dayaa inaan ka bixiyo school fees meel Amuud ha joogaan Hargeysa ha joogaan Garowe ha joogaan Muqdisho ha joogaan wixii iga go'i kara ma ay raahoon in Ismaaciil Samatar iyo wixii la caana maalaan wax ka bixinaya Soomaad garan arday fara badan ma jaamacadda Muqdisho ka soo baxday anigu ka bixiyo oo waliba gabdhow badan Soomaad garan taasi waa mid inaan meeshan joogo oo fursad ay siisay inaan Soomaali daafaco intii itaalkayga u malayn maayo in la igu dhalilayo Soomaad garan markii xamar la garaacay Ethiopia garaacay u malayn maayo in qof iga qayladaan dheera oo Soomaali inuu jiro dadkayga inaan difaaco haddaan anigu rasaasreyn qori baan ridi karaa qalin baan ridi karaa Sooma inaan ku difaaco taas waxaan qorana ma fara badna laakiin meel qabyaalad xoojina soon qoray laga soo heli maayo haddaan laga soo helana qoortaan soo dhiganay qoortaa la iga gooyo inta aan maxaan ku dhahay anigii Cabdi Samatar Professor Cabdi Samatar aan soo gelin fiilka aan soo gelin sida loo darso ee adduunyada ay u taqaano Soomaalidu si qura ahayd si qura oo waliba aad iyo aad kelmadda qabiilku ay miftaax u noqotay oo marka dadkii Soomaalida maskaxdooda aad loo sii geliyay ayay noqotay oo dadka anthropology-ga barta oo nin Talyaaniga oo caan ahaan jiro dhintay ya oo madax ka ahaa dadka afka Talyaaniga ku hadla soo aad garmayst iyo IM Lewis soo dhawaan dhintay oo nin Ingiriis ah oo wadanka Ingiriiska bacad professor weyn ka ah labadooduna way kala dab qaateen waxay ummadda Soomaalida nolosheeda iyo taariikhdooda dhan ku soo ururiyeen inay tahay dad qabiilka diin ka dhigtay soo aad garmayst oo miftaaxa qorayay anagu waxaanu neenay Cabdi Samatar isaguna jaamacadda California Berkeley oo PhD ka soo qaatay ana magaalada Denver la yiraahdo Colorado aan ka soo qaatay jaamacaddii oo isaguna soo baaray ana aan soo baaron iskugu nimid labadeed buug ugu horeeyay kii uu qoray iyo kii anigu aan qoray inay Soomaalida taariikhdeeda iyo fikradeeda iyo dhaqankeyga iyo mustaqbalkeyga inta ka balaaray waanu bedelnay markaa research baan sameynay buug baan qornay waan bedelnay ra'yigaas laba iskuul laba fikradood tartamaya markaa ayay laamaanta yihiin soo aad garmis waa la yaqaan dhalinyaro badan oo Soomaaliya ayaana soo dabagalay markii hore meel ay kala maraan amba waa inay ceelka qabiilka biyaha ka cabaan intellectual amba dayna xidmaan ayaan jiro maanta waa la yaqaanayo waxa la yiraahdo Ingiriisiga transformation amba transformative paradigm ya talabaad anu waxaan ahaa qofkii abuuray journalka qura ee academic ee af Ingiriisiga lagu qoro ee dadka Soomaalidu ay leeyihiin bildaan baa la yiraahdaa 13 sannadood da'diisu maanta way waa la wada yahay Soomaalida waa la wada yahay aniga Cabdi Samatar walaalana laakiin isku mid mani waan ka duwanahay Cabdi wana walaalkii wiiga dheer yahay aan ka qurux badanahay wiiga aqoon badan yahay laakiin waan ka hadal badanahay so many things horta xaajigaasi walaalkay mid baan Soomaali oo qadaynaya horta waa saaxiibkayga ugu horeeyay koo waay waana walaalka Soomaad garan isagu wuxuu sheegtay inuu iga qurux badan yahay aan ka qurux badanahay ya dumarkaana taa sheegi doona Soomaad garan Soomaaliyeed baa sheegi doona si fiican meel awqiiq haduu meel qiiq ka baxayo dab baa jira miyad waliga aragtay meel qiiq ka baxayo dab aanu jira marka hadii xantu meel haday xantu wax jiro waxba jira marka waxaynu u baahanahay in laga toos dib loo soo nooleeyo waxa la haystana kaydkeegii la adkeeyo deetana talaabooyin cusub arrimaha laga qaado wuxuu leeyahay Hadraawi danta inay xaraashaan markaad wax xaraashisid dukaankaagii lama iman oo loodan waxa naga bii lama adaa iibinayo waa af Ingiriis waxa lagu waa fire sale baa la gubaya waad ka baxsanaysaa meesha danta inay xaraashaan dantii Soomaaliyeed inay xaraashaan dambina xambaartaan isticmaar la xididaan oo gabdhihiisa guursadaan oo kuwaaga u guursado la xididaan ama xeer la yeeshaan qandaraas ay la galaan intaaba ku weydiidi jiray maxay sameyn jireen buu yiri intaan wallaahi waa birabbil kacba la oran raggu maxay oran jireen baa la yiri ya markay qaraaraatay waxayna qaadan karin hor yimaadaan waan ku xila furay waxaasi ma samaynayo oran jiray waayo qoyska ayaa qiimo lahaa dumarka ayaa qiimo lahaa waayo ma doonin dayal inuu reerkaagu ku baaboo marka wuxuu yiri kuwii ku xaasoo dhan ka xila furay waa la laayahay maanta
marka waxa weeye adduunyada marka wadan la aqoonsanayo amba dood la keenayo waa doodayna wali si buuxda u keenin weey kelmadda dissolution waa important in international affairs dissolution burburka cayn cid talisaa ma jirto maanta xamar cid ay u talisaa ma jirto oo dee amar ma siin karto Puntland yaa saada gamis amba burka ka xamar baan xitaa degmadeeda oo dhan aan gacan dawladda ugu jirin marka waxa weeye markuu sidaa u daato u burburo quraarada sidaa u jajabto ay dhamaato de waxa soo baxay qof walba iyo ummad walba halkay taagan tahay inay ka tashato de waxay ka yeelayso mustaqbalkeeda qawaaniinta international lawguna arrimaha uu xalaaleynaya hada baleeg waa doodaha aynu doonayno banaanka soo dhigo wax inoo gooni ma waa wax adduunyada lagaga dhaqmo way dissolution marka waxay noqonaysaa xuquuq qawaaniin ku fadhida oo aad leedahay oo doonan karto legal rights mar haddii centerkii oo sidaa u kala daatay oo u burburay waan kaa qoslini marka allah yarxame maxamed ibraahim cigaal ayaa si dabayaaqadiisi wahayd waraaq baa cigaal baa loo geeyay waraaq ninkii raggii uu geeyay mid ka mid ah iyaga sheekaynaya waxaan nidhi war ninkani gabile buu maalin kasta oo sanad kasta ma yimaada hooyadiiba ku nool allah yarxame hooyo dhimatay imika waxana wuu qoraa hal la qabto bay ku yidhaah cigaal de wuxuu ahaa wuu ka wada sarreeyey waxan oo dhan wuxuu yidhi wuxuun buu qoraa soo maaha qori miyuu soo qaataa maya dee ninkuna ordoo qora buu yidhi soo maad garan marka waan jeclaan lahaa inaan fursad waqooyi u helo oon dood ka bilaabo odhanaysa waa inaynu ishaysanna haddaynu Soomaali nahay yaa macnaheegu ma ahayn reer waqooyi la dhaco macnaheeguna ma ahayn koonfur la dhaco waxa weeyaan walaalahay hargeysaha ka yimaadaan boosaasaha ka yimaadaan galbeed ha ka yimaadaan kismaayaha iyo ha ka yimaadaan raas kaamboni qof waloo Soomaali wax xaqiisa iyo xaqiiqa inta helo han wada guuleysano oo qoorta intan sidii waagi hore aan ahaan jirnay han ka sareyno ayaan rabaa waanu taama diidanay laakiin waxaan aaminsanahay anigu Soomaalinimo iyo Islaamnimo kamaan tegin waanan aaminsanahay waxaan ka tegay sida la isku xukumo ee dawlad loo dhisto anigu waxaan arkay rajo xamar inaanay waqtigan oolin cid ka dhageysanaysaana aanay jirin soo meeshuna ay dad gooniya u xidhan tahay de marka waxaan doortay inaan dhulkii aan ka imid tago iyagii bal aan isfahamno waxay hayaan aan la eego waxaan ku biirin kara aan ku biiriyo marka xasan waxaan ku yidhi waxaad ku tidhaa dabaaldeg iminka ma jiro ducaa jirta quraanka dadka ugu wanaagsan ee wadanka yaqaana culimada iskugu yeedha fila Soomaaliya quraan hal shaydaan baa gali jiray 20 sanadood iyo wax ka badan shaydaan baa gali jiray quraan hal lagu akhriyo quraanka lagaga saaro ya adiguna ducayso Soomaaliya ii soo duceeyay dadka masaakiinta hareerahaaga deganna waxa la siiyo maalinta 4 sanadood ku dhamaadaan ayaa la eegi doonaa wax loo dabaaldegaa inuu yimiday iyo wax laga murugooda inuu yimiday